soo dhawaada awliyaasha gobolka Hiiraan oo bulshada Soomaaliyeed si nadiif ah ugu shaqeeyo. Maanta waxaan warbixin idinka siinayaa dagaalka ka dhacay degmada Firlibaax. Waxaa soo weeraray nimankii dagaalqabayaasha ah. Sida ogtihiin degmada Firlibaax muddo 7 sano 8 sano ah waxaa ku sugnaa shacabka si abaabulay ma joogaan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliyeed ay leedahay, laakiin dadka shacabka ayaa kula dagaalamayay. Saakina dagaal baa dhex maray, dibayna ugu laabteen deegaanada ay ka soo duuleen oo muxuu ahaa Buqoosaar iyo Ceel Caday halkaas dib ugu laabteen. Sidaan ka warqabo dadkii meeshaas kula dagaalamay wax khasaare ah soo gaaray ma laha. Nabad baa halkaas saakin ka cayriyay oo dagaalamay ilaahay alxamdigiisa. Laakiin markii dhanka kale loo fiiriyo dadkaas waxay Soomaaliyeed inay ka helaan tasiilaad, kaalmo, tababaro, xaquuq inta kama haysan. Muddadaas 7 sano ah oo halkaas ay joogeen ku dagaalamayeen dadkii waxaa soo fog saartay niyad xumo. dowladdii Soomaaliyeed rajada ay ka qabeen ay kala yihiin waxay la xiriireen saraakiisha ciidamada qaranka Soomaaliyeed oo sareyso sida militariga oo kale kuwa gobolkan jooga oo ugu horeeya muxuu ahaa taliyaha guutada. weli wax kaalmo ah oo ay ka heleen haba yaraatee ma jirto. waxay kula dagaalameen 2 bilood ka hor Ceel Caday oo dagaal adag ku dhex maray oo ayaga laftigooda ay khasaarana ku gaarsiiyeen shabaab ayagana maalinba maaragtay meel bay galaan deegaanka lagu hartamayaa. waxa la dagaalamayna waa dadka shacabka ah. dowladdii Soomaaliyeed hanka weyn loo qabayn hadda iyada madaxtooyada dhexdeeda ka baqayso. madaxtooyada dhexdeeda ayada ka baqayso. marka arrinkaas waxaan u arkaa nasiib darro inay tahay. waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ha loo soo banbaxo, dowladda gacnaheeda ha gaarsiiso si ay shabaabka iskaga xoreeyaan. ma filay intay ciidan u dhisto dadka inay shabaab ay iska xoreeyaan ma filaye dowladda ay ka xoreyso ma filaye. laakiin dadka Soomaaliyeed waxyaalaha ay politicada ku bixinaysa ay ka joogto dadka Soomaaliyeed oo shabaab u taagan inay dagaalamaan ha gaarsiiso gacnaheedu hatta kuleyso. Assalaamu calaykum. dagaalkii maanta maxaa khasaare ah? wax khasaare oo haba yaraatee oo xagga dadkii shacabka ku dagaalamay degmada Firlibaax ma leh, ma jiraan. waxaa tiri dowladda federaalka ha ka soo baxda madaxtooyada dadkan dowladnimada ha la wada gaarsiiyo. adiga gudoomiyihii Firlibaax ku magacaaban tahay beledweyne ayaana joogtaa, maxaa ka hosgareetaa inay dhacdo? aniga waxaa jooga gudoomiye ku-xigeenkayga ayaa jooga degmada Firlibaax ku sugan Xawaale. aniga iyo gudoomiye ku-xigeenadeeda kale oo maaliyadda iyo amniga iyo siyaasadda oo gudoomiye ku-xigeenkooda Xawaale ah. anigana halkan shaqan u joogaa. waadina ogeen Firlibaaxna waa tagaa si nabadgelyahana ku tagaa. waxaa mahaddaas iska leh dadkii shacabka oo deegaankooda shabaab kula dagaalamay u diiday waxyaalaha maaragtay ay dadka ka qaadaan oo sida sakaawaadka iyo wax la midka iyo ilmaha baadda oo dadka keena dhahan dadku u diidaa mahaddaas iska leh. laakiin waxaan sugaynaa hadda waxaa jira ciidan yar oo loo xareeyay degmada Firlibaax oo ku tababaranaya muxuu ahaa Jowhar. markay tababarka ka soo baxaan waxaan sugaynaa maaragtay inaan kuwa kale u xareyno si ay u gaaraan dowladnimada u gaarsiino. dadaalkeedaan ku jirnaa. hadda xilligan la joogo Firlibaax yaa gacanta ku haya? saacadan hadda joogno waxaa gacanta ku haya ciidamada deegaanka. al-shabaabka deegaanada ka soo duuleen ay u laabteen. shacabkii lagu dul dagaalamay dhankooda maxaa khasaare ah wax khasaare oo gaaray meel magaalada ka baxsan markii dagaalku ka dhacay. aad u mahadsantahay mudane gudoomiye.